بسم الله الرحمن الرحيم حد كسو دواتان ورك عيارة مقعي وصادق حسن محمد حسوك كوبدونا إن شاء الله ورك عيارة سوك كوبدونا محالة قوري مجلدها قار محي قرآن مجلدها إسبانيش محي قرآن مجلدها إنجليز محي قرآن مجلدها تريان محي قرآن مجلدها فرانسيسك محي قرآن سوك كوبدونا إله دير هذا سوك كلتو وحيرا يا كارسن أفريقيا إنا سوك كوارجينا qodobka koowaad wuxuu qoraa miyu Mourinho qosolka laga dambeeyay akhris lacagta waalida ah oo magdhow u qaadanayo Tottenham iyo sidii uu hore jeebka ugu soo buuxsaday United Real iyo Chelsea tababaraha Chelsea ee Thomas Tuchel oo jawaabka bixiyay shaqada laga ceeriyay Jose Mourinho UEFA oo go'aan ka gaadhay haddii Real, Chelsea, City, Arsenal iyo United laga saarayo semifinalka Champions League iyo Europa League maxaa ka jira in Jose Mourinho shaqada Spurs laga ceeriyay sababtoo inuu Europa Super League ka soo horjeestay إن جراد أخرس هذا الكي وأرسنال وينجر كساد عليك وبدأ عقد لوي تونسن كور أو ما أنت تاجن حدك توجن معي أو جلسي كتجاي وحكى عصب شيسك ميسي إيه بارسلونا يورك قدام بيع سوق كلا إفسيجا kuwaasna waxay ahayn wararkii ka kooban waxa ku soo dhawaataan wararkii fidsan macalinka xulka Portugal ee macalinkii hore ee kooxaha Manchester United ee Chelsea Real Madrid Inter Milan Porto ayaa laga ceeliyay qalcadda Spurs shaqada laga buriyay albaabka Tottenham iyadoo laga eeriyay shaqadii kadib barbarihii ay kooxda Jimcihii la gashay Everton ayna ka horeysay guuldaradii Manchester United xambaarisay toddobaadkii horeeyay tababaraha reer Portugal ee kontonii 8 jirka ayaa shaqada laga ceeliyay maalmo ka hor finaalka Carabao Cup-ka iyo FA Cup-ka ay Tottenham la ciyaarayso Manchester City waxaana taasi dhaawac ku noqon karto inuu diyaar garowga Spurs ay kulanka maadaama ay qasab tahay in tababaro cusub oo xilka qabto rikoodka guulaha Jose Mourinho Tottenham ayaa ahaa 151 wuxuuna hataa ka sii hooseeyay macalinka ka horeeyay ee Mauricio Pochettino oo celceliskiisa guulihiisa ahaa 54% iyadoo iyo dheeraad 100% taas oo ka dhigan in uu liitay markii ninkaani uu bedelay markii shaqada la magacaabay November 2019 waxay Spurs ku jirtay kaalinta koowaad ee miiska kala sareynta waxayna xeereedkaas horey keenay kaalinta lixaad ee kaga dhameystay horyaalka Premier League laakiin tartankii ay ka qayb galeen Europa League ayaa kooxda yar ee Dinamo Zagreb si xun ugu reebtay halka maanta oo shaqada laga celiyay Spurs Daniel Levy oo ah mulkiilaha gudoomiyaha Tottenham ayaa ka ceeriyay Jose Mourinho shaqada wuxuuna u dhiibay tababarada ciyaar tababaraha Chelsea xulka Jarmal ee Thomas Tuchel oo jawaab ka bixiyay shaqada laga ceeriyay saaxiibkiisa Jose Mourinho iyo dhammaan shaqaalihiisa ayaa subaxnimadii saaka oo isniin ah laga ceeriyay shaqada Tottenham kadib markii ay kooxdiisa u degtay kaalinta toddobaad isla markaana ay 5 dhibcood lumiyeen labadii ciyaarood ay ugu dambeeyay horyaalka
Tottenham ayaa soo martay xilli ciyaareed adag oo ay kooxda yari bisha hore ka reebtay tartanka Europa League ayna adag tahay in ay qayb ka noqoto Champions League xilli ciyaareedka dambe laakiin waxay hadda la ciyaari lahayd Manchester City finaalka tartanka EFL Cup-ka shaqo celinta Mourinho ayaa ku soo beegantay waqti xasaasi ah oo ay taagan tahay sheekada horyaalka cusub ee ay kooxda waaweyn ee Spurs ku jirta ay tiradoodu tahay 12 ay sameynayaan kaasoo lagu magac daray European Super League sidoo kale ceelinta ayaa ku soo aaday maalmo kooban ka hor ciyaarta finaalka Carabao Cup ee la ciyaaraysa Manchester City tababaraha Jarmalka ee Thomas Tuchel ayaa ka falceliyay in Tottenham ay waqtigan shaqada ka dirtay Jose Mourinho wuxuuna yidhi ha badnaato ama ha yaraato anigu mar walba la yaab ayay igu noqotay markii tababaro shaqo laga eeriyo waxaynu dhammaanteenu nahay tartamayaal waxaynu isku daynaa in midba midka kale ka badiyo laakiin ugu dambeyn waxaynu tababaro walba uu rajeynayaa jawi wanaagsan xaalada wanaagsan iyo goob shaqo waxaan u rajeynayaa saaxiibkayga Mourinho nasiib wanaagsan UEFA oo go'aan ka gaadhay haddii Real, Chelsea, City, Arsenal iyo United laga saarayo semifinalka Champions League iyo Europa League xiriirka kubadda cagta Yurub ee UEFA ayaa go'aan ka gaadhay kooxaha u soo gudbay semifinalka Champions League iyo Europa League Real Madrid, Chelsea, Man City, Arsenal iyo Manchester United kuwaas oo ay qayb ka noqotay tartanka Super League ay kooxaha weyn sameysteen shan ka mid ah sideedda kooxood ee soo gaadhay semifinalka Champions League iyo Europa League ayaa qayb ka noqday kooxaha tartanka sameystay waxaana maanta kaalinta hore soo baxay warar sheegaya in UEFA ay ku saarayso tartamada Real, Man City iyo Chelsea ayaa u soo gudbay semifinalka waxayna kaliya ay ka raxday PSG ahayd in ay la ciyaarto Man City laakiin warar ayaa sheegaya in koobka Champions League si toos ah loo siinayo PSG sidaas oo kale ayaa loo sheegaa waxaan PSG ka aan Real, Chelsea, Man City waxay ka qayb galeen koobka waaweynka kooxaha soddon lawada ay ka qayb galeen PSG kama qayb galin waxaa la Champions League PSG si toos loo siinayaa lama ciyaarayo waa PSG kama qayb galin koobkaas kooxaha koobkaas ka qayb galay oo laga saarayo tartan marka Champions League waxaa la Champions League gacanta waxa loo gelinayaa kooxda PSG degdeg xidiga xulka Portugal ee dhaxda kaga ciyaaray Manchester United Bruno Fernandes oo ka hor yimid tartanka Super League Manchester United kansali doontaa heshiiskan sidii ay Tottenham u ceerisay Mourinho Bruno Fernandes ayaa noqday ciyaartoygii ugu horeeyay ee kooxaha waaweyn ee ka soo horjeesto qorshaha lagu sameynayo tartanka cusub ee European Super League ee shalay si rasmi ah looga dhawaaqay Manchester United ayaa hal maalmood ka ahayd kooxaha qaybta ka ah tartankan laakiin ninkii xidiga xulka kaga ciyaaray ee Bruno Fernandes ayaa diiday wuxuuna leeyahay tartankaas anaga qayb kuma nihin Champions League ayaan qayb ka nahay Endegaraad akhriso hadalkii Arsenal Wenger ka saadaalay kubadda cagta 12 sano ka hor oo maanta taagan kubadda cagta Yurub ayaa ahayd mid ilaa shalay u raxay warka in 12 sano ka mid ah kooxaha ugu magacaweyn laguna jecel yahay qaaradda Yurub ay ku biireen tartan iyagoo u gaar ah sameystay UEFA warbixin rasmi ah soo saartay ayaa sheegtay in kooxaha waaweyn ay ka qayb sameysteen tartan ay sameysteen sidoo kale waxaa sheegayaa si kastaba waxaa baraha bulshada aad loogu baahinayaa
saacadihii ugu dambeeyay hadallo uu yidhi macallinkii hore ee kooxda Arsenal ee xilka Faransiiska Arsene Wenger 12 sano ka hor ayuu hadalkan yidhi. Wuxuu yidhi Wenger ayaa waqtigaas sheegay in 10 sano kadib ay kooxaha qaar ku yaraan doonto lacagta ay ka helaan Champions League isla markaana ay samaysan doonaan European League oo u gaar ah oo ay lacag kaligooda ku qaybsadaan. waana arrinta maanta jirto. waana runtiisa u saadaaliyay ninkan u saadaaliyay waxaas maantana way dhacday oo way soo baxday. waxaan u gudbaynaa haddana wararka suuqa kala iibsiga. maxaa ka cusub wararka suuqa kala iibsiga? xiddiga tuujal nacay oo Chelsea ka tagaya waxaa ka cusub heshiiska Messi ee Barcelona iyo wararka ugu dambeeya ee suuqa kala iibsiga. Barcelona ayaan weli wax dalab ah oo heshiis cusub kaga doonaysa in u gudbin Lionel Messi oo qandaraaskiisa hore dhammaadka xilciyaareedkan dhacayo. waxaa qortay majalada Marca. wada hadallada u dhaxeeya Barcelona iyo Ousmane Dembele oo heshiis kordhinta ayaan ahayn kuwo horumar leh iyadoo qandaraaska xiddiga Faranji ku eg yahay 2022. Sporting ayaa qorayso Paris Saint-Germain tababaraheeda Mauricio Pochettino ayaa rajo weyn ku qaba in 22 jirka kooxdiisa ee Kylian Mbappé uu heshiis cusub u siixi doono kooxda. waxaa qorayso Goal. Andre Lacazette ayaa sheegay in go'aanka uu heshiis cusub ugu siixayo kooxdiisa Arsenal uusan ahayn mid isaga keligii ku xiran xilli heshiiska hadduu yahay mid dhacayo 2022. waxaa qortay The Mirror. Leicester City iyo West Ham United ayaa xiiseynaya saxiixa 23 sano jirka weeraryahanka ah ee kooxda Chelsea ee Tammy Abraham ee u dhashay xilka Ingiriiska oo laga saaray liiska xiddigaha Man City ka hor tagay Sabtidii una muuqday mid aan qorshaha Thomas Tuchel ku jirin. The Guardian ayaa qortay majalada. RB Leipzig tababarada Julian Nagelsmann ayaa sheegay inuusan wada hadallo la yeelan Bayern Munich oo doonaysa in ay bedel uga dhigto Hans Flick oo dhammaadka ciyaareedkan ka tagayo. The Goal ayaa qortay Inter Milan ayaa xiiseynaysa inay Chelsea kala wareegto saxiixa 26 sano jirka daafaca bidix ee Emerson Palmieri. waxaa qortay Tojes in Spanish. goolhayaha kooxda Juventus ahna xiddiga hore ee Arsenal ee Wesley Szczesny oo 31 jir ah ayaa dhammaadka ciyaareedkan Juve ka tagi doona si uu Tottenham ugu biiro. The Goal ayaa qortay AC Milan agaasimeeda Masira ayaa sheegay in kooxda heshiis cusub ka saxiixanaysa Ibrahimovic 9 jir ah. sidoo kalena ay sheegay in ay rajo weyn ka qabaan inay saxiix ka sameeyaan goolaha Donnarumma. waxay qortay Dasne majalada la yiraahdo Football Game Italia. waxaan halkaas ku soo gabagabeynaa wararkeena ciyaaraha. waxaan idin leeyahay Ramadaan Kariim. wararka ciyaaraha aala waxaa idin socodsiiyay wariyaha Saadax Xasan Maxamed ku magac dheer Walaal Boos. waxaan idin leeyahay Ramadaan Kariim. nabadgelyo.